iyo inuu yidhaaho de ma hitiin Soomaaliland ma tiidno ima tirsanidin halkan waa laga codeeyay geedable waa laga codeeyay dadaanku aqoon baa ku codeeyay oo ciraanu doonaynaa yiri Muuse ardayda iskuulka dhigto deegaanka kamid ah ma hayaan biyo ay cabaan ardayga soo lugeeyo ugu yaraan 2 kiiloomitir ama 3 kiiloomitir nala fadhiyo dabadeedna nin fiqle la oran jiray xabashiya ayaa yiri xeradaynu talaalayna dabadeedna annagoo xilxilayna ayuunbu yiri maareeyo looma baahna iska banado madaxweynaha maanta xilkii haya waxaad ku amartaa maareeya ka horeeyay ina Maxamed Daarood cali Daarood toddoba maareeya ka horeeyay maareeya kastaaba wuxuu oran jiray uu shaqaalaha ku dardaari jiray deegaanka hala ilaaliyo deegaanka wadada kale ka wareegaane maxay ahayd halka martay Daar Salaam marta xataa waxay diiday madaxda inay soo marto biyashina dhixiis soo dhan waxa saameeyo imika iskuulka laftiisa ardaydii looga wada kaxaynaya anagoo shahaadal ku siin markaa u talaasada Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa haddaanu reer biyashiinanahay dhibaato biyo la'aaneed oo waxa weeyaan dadkii daayo xoolihii baktiyayaan xoolaha meel aanu aroorina male xoolaha jooga lo' baa joogta geel baa jooga ari baa jooga bal dadkii daayo marka imika abaarta xooli baa baktiyaya oo baktiye meel biyo uga dhowina ma jirto biyana de ma waraabin karayno booyada kama waraabin karayno waxa weeyaan dadkiina hadalkiisa badda xoolaha hadalkooda daa xoolaha marka abaarta tahay way bakhtiyaan dadkiina golis baa la isku bakhtiyaayo laba taango yar meel u dhigtay waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa de inuu hoos noo eego iyo inuu yidhaaho de ma hitiin Soomaaliland ma tiidno ima tirsanidin halkan waa laga codeeyay geedable waa laga codeeyay dadaanku aqoon baa ku codeeyay oo ciraanu doonaynaa yiri Muuse laga codeeyay madaxweyne de bal waxaad yeeshaa bal waxaanu ka codsanaynaa inaad hoos noo eegto xooli baa baktiyay geedable biyo noogu dhow meel alaaliya meel ay xooluhu ka cabaan male dadaayo male xoolaa jooga geel baa jooga ari baa jooga lo' baa joogta beer cadaad weeyaan inta yara roobku jooga dhaamka ka cabaan dhaamku markay guraan waa biyo la'aan adigu halkan deegaanka biyashinaha ima sanad degantay anigu waxaan deganaa ilaa ma iyo 81 muddo sanada waa 40 sano bay degantay muddo deganeed ilaa dhawankii ilaa iyo maanta sano kala ma isku dhacay beelaano sabiyaanta imika ka wadi tahay toddoba maareeya ka horeeyay ina Maxamed Daarood cali Daarood toddoba maareeya ka horeeyay maareeya kastaaba wuxuu oran jiray uu shaqaalaha ku dardaari jiray deegaanka hala ilaaliyo deegaanka biyashina hala ilaaliyo ilaaliya buu ku dardaari jiray ilaahay igu og inuu ku dardaari jiray bal haddaba inankan de inkaar iyo waxba toona ka baqan maaye waxa weeyaan imikana de maareeyuhu waa inan yar oo dhawaan yimid madaxweynahaanu doonay inuu wax noo qabto inuu biyo noo furo inuu maxay tahay dadka de Soomaaliland nala maseeyo waxaanu go'doonka u noqonay de anagu waanu yaabanahay waanu aamusnay waanu xishoonay waxaanu isnii dawladdu waa dawlad cusub buuqa ku kicinina ha buuqina ha caayina waanu xishoonay de anagana hana laga xishoodaan leenay waxaan ka tirsanahay deegaanka biyashinaha biyihii deegaanku biyo ma leh xanaanadiisa waad aragteen halkan ay ku taalaayo way qalalantay gaari ambalaas xataa musha ku foolata ayga ama kaynta lagu soo qaado lama hayo 200 arday baa iskuulka dhigto deegaanka kamid ah ma hayaan biyo ay cabaan ardayga soo lugeeyo ugu yaraan 2 kiiloomitir ama 3 kiiloomitir iyo badh ku koobo biyo cabaa ma jirto iskuulku biyo ma leh booyad wax u shubta ma leh dhaqaale ma leh dawlad caawiso system kale ka caawisa ama biyaha ama xaalado kale ma jiraan masaajidkii waad aragteen oo wixii dadku awoodooda mooyaane isna waa la mid xanaanadii umushu hooyadii dhalaan ku waatan iyaduna male ambalaas male biyo male waxa dhacday in la iska dhaafo umushu iyadoo xataa haday doonto dhiigbax ah magaaladii lagu cararo horta xaaladdu waa sidaa biyo ma jiraan oo iyada dawladii soo mari jirtay meesha ayaa xataa markay biyihii leexisay baabka halka maraya halkaaga uga dido umada waayo umadan waxa ka mid tahay reer Soomaaliland kuwan magaalada loo geeyay biyaha iyo kuwan la dhaafinayo anu waxaan maleynayaa labaduba inay Soomaaliland yihiin halkan halkii dhaawac la dhigi jiray halkii halganka ugu badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo qayb qaadatay maadaama xaaladdu saa tahay niyahow madaxdii wadada kale ka wareegaane maxay ahayd halka martay Daar Salaam marta
حتى waxay diideen madaxda inay soo marto biyashina dhixiisa si aan loogu caban waxay maraan wadada kale ee biyashina galbari ka xigta ayay maraan maareeyaha wax alla wixii la socda wixii dawladdan xagaan ku wareejiyay halkan cid alla cid soo marto oo lala hadlaa oo wax la weydiiyaa ma jirto dhowr jeer baanu cabanay wax badan baanu sheegnay cidi waxba nagamay gurin xaaladayadu waa sida deegaanku biyo male umushii biyo ma hayso ardaydii in ka badan 300 arday baa iskuulka dhigta ma hayaan wax biyo ah waayo ardayda badankooda waxay soo qaar baa waxay ka soo lugayaan dhegalay imka wad garanaysaa waxay noo jirtaa 3 kilomitir iyo bar ama 4 ugu yaraan xaggan oo kale waxay ka yimaadaan anayo xaggan dooxa kale ka soo talaabaan ilmaha ardayga biyo uu cabo oo waxa taa inta uu isticmaalo ma hayo marka xaaladda biyashiinu waa sidaa weey walaal waad mahadsantii waxa hadda kala soo gargar sugan maxamed Beleeyo kamid ah deegaankan degan biyashiinaha oo hadda soo sugnahay maxamed soo dhawow hore soo dhawow waxaad ka warantaa deegaankan biyana marka taag farabadan marka taagan maxaa biyo ku dhacay biyo waxa ku dhacay maalintii anagu beebku marayay meeshaasaan anigu xidhxidhayay xerada horteeda maarayuuna nala fadhiyay in cad daarood uu nala fadhiyay dabadeedna nin fiqle la odhan jiray xabashiya ayaa yidhi xeradaynu talaalayna dabadeedna annagoo xidhxidhayna ayuunbuu yidhi maarayu looma baahna ee iska banadoo falaash ku xidha sidii waan ku xidhay anigu shaqaalahan ka mid ahaa beebku xidhayo waa xitaa waa talaalayay laakiin waxaan falaash waa la falaash gareeyay waa la awdeen marka waxa weeyaan xanaanadu way biyalaaday iskuulku waa biyalaaye waxaan ku idhaahdaa masaajidku waa biyalaaye waxaasoo dhan waxa saameeyo iminka iskuulka laftiisii ardaydii looga wada kaxaynaya waa biyalaan maarayihii dib u artay isaga maarayihii waan ka tegey meesha waan ka tegey waxaan ku idhi markii aan iskaga dabadeedna maalintii waa igu dambaysay soo maad garan marka waa misano waa 4 sano dee meelaha ilaa 5 sano meelaha weeyaan way biyalaade ilaahay baa mahadle maanta waxaanu tagnay safar baan u baxnay ilaa meel kasta udaan abaarahan soo eegnay iyo xaaladaha kulba deegaan ku jiro waxaan imika soo marnay biyashinaha oo halkii biyo ka soo baxayeen oo muddo badan biyala horena aan uga hadalnay dadkuna ka hadleen waxaanu baaq dheer u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay halkii biyo ka soo baxayeen way biyalaaday madaxweyne adaa maanta xilkii haya waxaad ku amartaa maareeyo wakaaladda biyaha inuu u geliyo biyaha masaakiinta ilaa xeedho ilaa bacada ka caba ummad ilaa 20 kun oo qof ka caba in badan baa lala hadlay maareeyaha oon la hadalay waxaan madaxweyne ku leenahay biyaha loo furo masaakiinta sida dadka kale u cabayaanba iyagu xaq bay leeyihiin oo biyo baa ka soo baxaya maareeyana waxaan leeyahay wax badan waad qabatay saaxiib laakiin halkii ugu dareed baa biyashinaha oo biyala ilaahay uu ku weydiinaya yawmal qiyaamaha iyagoo biyaha cabado simido haddana waad ka tirtay xilkuna waa meerta berri waad ka tegaysaa ama taadii noqon ama waa laga eri oo qof la qabsan taariikhda ku gashay waxaan ku leeyahay nin biyaha u talaal masaakiinta oo barkada kaydka ugu iyadoo qaraxaan joogno dagaal ka socdo ayaan joognay oo Soomaaliland ku soo qaxday oo biyaha ka cabayeen diyaaradda ku rusheeyso oo faqas nagu soo weerartay oo Ibrahim Ligawaan watay maalintii halkan aan ku dhaawacmay gaaskooda nagu soo weeraray inama yaro waxba ka ogeeyno imika xilka loo dhiibay oo dal iyo dadka garanayn ayaan leenahay anagoo shahaadaan ku siin markaad u talaashada saasan ku boorinayaa maareeyaha sababta biyaha ma tahay niyow waxa loo xidhay waa tibeebkii hore laga guuray inay siyaad markii uu haystay uu ugu talagalay inuu talaalo oo waxay dhahdeen kuma nasan karaan halkan biyuhu toos bay u dhaafayaan dee cillad farsamo looga waayo inoo loogu talaalo dadka halkan degan biyaha waa looga talaali karaa hargeysana dee biyuhu ha cabto dadkana ha cabbaan intii muuse haystayba in badan waanu ka hadalnay madaxdeena cusubna marka waxa loo sheegay tala bixin way kula coloobayaan waxaan leeyahay
ilaahay baan u baahanay anu ila cilooba wixii danta caamka waanu ka hadlaynaa ilaa maalinta iyo qiyaamuhu dhacayo ya asalaamu calaykum in deegaanka biyaha laga jiro oo biyahan la hakiyo amba ay ka baxaan meesha yaa sababay maariya mise dowladda dhexe waxa sababay maariyaha ha waaye in sababta idinku deegaanka tiinay suldaanka deegaanka tay mara korantay waxba ka weydiisay sababta meesha sababta annagu waanu ku cilowleba laba jeer oo ka hadlay af uu yacdowdaba ya kala deelmayno suldaankiisi banayde ya wixii qaldan waanu ka qabanaynaa waxaan leeyahay in adeer xilku waa meerto magaca ku haatee biyaha u talaal dadka masaakiinta ma wax ku cadhooday biyaha dadka sida ha way ku jirtaa tiifiyada ha dadka yaa waraabiya dee booyadaha waraabiya wixii ilaahay u soo diro iyo warshada barafada mise dowladda waa barefad ilaahay gulis buu diray macalleerkii tan biyaha kaibsaa bilaash bay ugu shubtaa sudan deegaankan waan ognahay waa deegaan hargeysa dhinaca waqooyi waxba kama foga xaaladda guud ee marka laga imaado biyaha laga imaado bal caafimaadkiisa waxbarashada waa sidee wallahi way iska liitaan konta iskuul baa degmada ah ha konta kaa iskuul way qaar baa adhiga lagu xareeya haadii dadku waa reer guuraa ya boodhi bay u baahnaayeen in maa lagaga tago boodhinka si wax u barto ya dugsi sare ma laha hargeysay ciyaal ku baaba'ano ama hawarintii la joogo ama guri kale la joogo halkaan dhibaato ka haysata caafimaadku uu leeyahay laakiin ma badna dawo hagaagsan ma leh ha ya iyo biyalaanti nolol ma jirto haddii biyaha saameeyey biyaha markooba ha ya oo biyalaan